in aan baaq u diro dhinacyada Somaliland iyo Puntland in ay nabad ku xaliyaan wixii khilaafa iyo faraq ah ee u dhaxeeya bil Ramadaan baa lagu jiraa bil cibaada lagu jiraa looma baahna in dhiig Soomaaliyeed la daadiyo looma baahna in dhiig dad muslimiin ah la daadiyo maanta way arag baan 22 sano u nahay dhibaatada uu dagaal leeyahay in wiil ku dhinto mooyaane wax uu kordhiya aanay jirin cidna ayna ku macaashin Soomaaliya way kala adkaan lahayd 22 sanadood dagaal waxa la ogaaday in aan lagu kala adkaan karin walaalayaalow wixii nabad lagu hal iska daayo in dagaal iyo cunfi lagu raadiyo waxa kale oo aan dhinacyada u soo jeedinayaa in hadallada xanafta leh nac abuurka ah kala dilaya dadka Soomaaliyeed ee tol iyo xididka ahba la iska daayo laga waantoobo Soomaaliya waa wada gob waa dad wanaagsan waa dad muslimiin oo sharfan quraankeena kariimka ah baa sheegay oo la kad karamna bani aadam waa dad karaamaysan weeye marka karaamada iyo sharafta iyo Soomaalinimada iyo nabad jacaylka aynu ka duulayna odayaasha Soomaaliyeed iyo duqada ismada salaadiinta ha loo kaco nabadgelyaha lagu xaliyo wixii dhibaato ah jira waa mahadsantiin